su-aasha odhanaysa xayawaanka wax dhiba in dab lagu gubo xukunkeedu muxuu noqonayaa? waxaanu leenahay xayawaanaadka mu'diga ahee wax dhibaya in dab lagu shido sharcan wax bannaan ma aha. nebiguna sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan laa yucadibu binnaar ilaa rabbunnaar. waxa weeye ilaaha dabka leh iyo naarta leh mooyaane cid kale inay wax cadaabto oo dab ku shido ma aha. mar haddii xayawaanku nool yahay oo aanu bakti ahayn ee uu nool yahay, mu'di kasta ha noqdo, in waxa weeyaan la gubaa sharcan wax bannaan ma aha. ahlulcilmiguna dariiqadaasi fii kutubihim mansuus ku ah oo ay caddeeyeen, sida hay-a markaasi allajna daa'ima lilbuxuuthi alcilmiyati waliftaa ee sacuudiguba ay markaa fatwoodeen. ahlulcilmi badanna fii kutubihim ku naskareeyeen xadiiskana marsala nebigana sala allahu alayh wasalam laga fahmayo ee ku cad, ee uuna diiday in masalan quraanjo iyo waxyaaba noocaasi ah masalan dab la geliyo iyo wixii la mid ah. marka mar haddaanu ama wax electroni ahoo dee waxaan ama kaneecadii waxyaabaha lagu laayo aanu ahayn ee dab caadiga yahay, in waxa weeye lagu gubo oo lagu shidaa sharcan wax bannaan ma aha. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.